dhashaaday sugtaa xaajada doorataa abide nin dharbaaxa ceebee dugsaday dhaqayadeed maali idinka idin la jirtaa in dhowr qof karaamadiinni iyo taariikhdiinni iyo islaamnimadiinni iyo soomaalinimadiinni say rabaan ay ugu cayaaraan maya bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxammadin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waan idin salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed muxuu ahaa warfaafinta daljirna waan u mahadcelinayaa mar walba waxay faafiyaan wax khayr qaba oo dadka Soomaaliyeed ugu faafiyaan waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa lama seexan ciil iyo caro lama seexan waxaan weligay arag oo adduunyada ka dhicin baa ka dhacay Laascaano dad Soomaaliya oo muwaadiniin ah oo dalkoodii jooga oo aan dhib geysan oo waliba dhaqaale iyo farsamo ku soo kordhiyay magaaladaas iyo meeshii joogaan oo dhanba oo dalka ah in inta la soo qabto la yiraahdo Soomaali ma aha baabuur ruug gor hal tarxiilo oo 700 qof xataa Sacuudiga oo dad tarxiilaa isku mar ma tarxiilo macnaheeduna yahay arintaasi dambi weyn oo la galay weeye waliba Laascaano oo meeshii xorriyad Soomaaliyeed loogu dhaqdhaqaaqo oo loogu dagaalamo ugu horeysay dawladda Ingiriiska oo calankeedu uusan qorraxda ka dhici jirin waxaana magaca loogu bixiyay adduunka dhanbay gumaysanaysa meeshii 20 sano laga dagaalamayay oo laga xoreynayay dalka in dad Soomaaliya oo masaakiin ah oo shaqaysta oo wax dambiyo ay gelin jirin inta laga tarxiilo la yiraahdo Soomaali ma aha xabashina ay joogto iyo Ethiopian waa adduunka gadoon waxaan weligay aragno maqalay maaha wax adduunka ka dhacay maaha wax la yaab la weeye waxaan rajaynayaa falcelin degdeg ah arinta in dadka ku nool gobolka Sool iyo gobolada waqooyi ee dalka inay falcelin degdeg ah ka qaataan haddii kale iyaga bari la tarxiilaya ayaka laftooda yaa laga tarxiilaya fallaartaasi way idin la jirtaa ceebtaasi way idin la jirtaa tacdarradaasi way idin la jirtaa taariikh xumadaasi way idin la jirtaa waxaadna ahaydeen dadka buugaagta Yurub yaala oo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Kanadiyaanku qoreen iyo Yurubiyaanku ku xusan baad ahaydeen oo isticmaalka jabiyay waxaan akhriyay joornaalo kuwa ugu waaweyn Yurub The Guardian iyo Mareykanka Washington Post New York Times 1911 ka qoraya maalin walba page-ka koowaad safxada koowaad baa lagu soo qori jiray dagaalkii muxuu ahaa daraawiishta Sayd Maxamed Cabdulla Xasan maalin kasta hadda archive-ka ku jirta marka rabtid computer-ka aad galaysaa waa ka helaysaa intaasoo buug baa laga qoray meeshii saas ahayd dad Soomaaliya in laga tarxiilo waxa weeye waa urugo waa calool xumo waa xanuun waa taariikh xumo waxa weeye haddaydan iska dhiqin reer Laascaano iyo reer Sool iyo reer Waqooyi reer Soomaaliland haddaydan iska xalin arinta oo iska dhiqin cambaar iyo ceeb halka wajiga waligeedin kaga olaanaysa weeye oo ka ab Soomaali iska dhaxasho Soomaaliyana ma kala tagayso waad ogtiin maalin bay soo imanaysaa arin idin taalo weeye waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka halkan ku soo dhaweeyay oo gaalkacay khaasatan maamulka gaalkacay oo madaxda ka yahay gudoomiye Sanyare Puntland maamulkeedoo dhan madaxdeedoo dhan dadweynaheedoo dhan waan u mahadcelinayaa soo dhaweynta dadka ay soo dhaweeyeen oo yiraahdeen qofkii raba inuu koonfur galbeed aadana baabuurkan ka bixinayna qofkii kalena ha shaqaysto waliba waxay ku shaqaysan lahaayeen waa loo muxuu ahaa waa la siinaya aad iyo aad baad ugu mahadsantiin arintaas qoladaas laga soo rarayna umaleynmayo in isaga ku seexanaya waayo aniga seexan waayay oo aan reer Laascaano ahayn laakiin Soomaaliya halka seexan waayay waan hubaa boqolaal kun oo Soomaaliyeed inay ka seexan weeyeen arinta ama dibadda joogeen ama gudaha joogeen kacdoon iyo kacaan shacbi ah bay arintaani riman tahay waxaan taa ahayn oo istaashaana ma jirto shalay baa halka
lagu tarxiilay cawaale oo nin Soomaali oo la yaqaan oo haliyay oo qaadka diida ah habeen barkii laga soo tarxiilay lagama falcelin shalay baa ninkii muxsinka ahaa oo khayr wadaha ahaa markuu sheegay dalka dib in lagu hayo oo la kiristaameynay caruurtayadii lagu xiro ilaa hadda uu ku xiran yahay oo cid aysan ka hadlin oo cid ka falcelin dhashaaday sugtaa xaajada doorataa abide nin dharbaaxa ceebeed dugsaday dhaqayadeed maaliyo idinka idin la jirtaa in dhowr qof karaamadiinni iyo taariikhdiinni iyo islaamnimadiinni iyo soomaalinimadiinni say rabaan ay ugu cayaaraan maya taa halkaasaan kaga baxayaa warkaasi waa idinla jiraa falcelin baan sugayaa tan labaad waliba waxaan rajaynayaa in meel kastoo Soomaaliya joogto ay ka mudaharaado oo ka banaan baxdo arrinta dalkoo dhan dhulalka maqan meelaha ay Soomaalidu qaxootiga ku joogto oo Yurub iyo Ameerika arrintaas si wada jira dadka Soomaaliyeed baan u abiil gareynayaa in looga dhiidhiyo weeyo oo waliba dadka Soomaaliland degan ay u horeeyaan hormoodna u noqdaan waan ognahay dadkaas inay Soomaali yihiin Soomaalinimada jecel yihiin magacooda maamulada hadda jira wax Soomaali ka bilowday iyaga jira self denial in identity-ni iyo taariikhdiini lagu sameeyo juurfalka inta laag waxa idinka idin taabanayo inta saanayna taaban taa wixii ay af kala hayeen bay ficil ahaan u fuliyeen oo ceeb weyn ah oo maaha Soomaali kaliya ceeb kuma adduunka dhan baa laga cambaareeyay caalamka dhan baana ka soo horjeeda waad ogtiin 2 milyan oo Soomaali iyo in ka badan baa banaanka jirta markii dalka uu dagaal ka dhacay oo baasboor la siiyay oo guriyo la siiyay oo iskoolaad la siiyay oo caafimaad la siiyay kuwa xataa ma ku dayan waayeen ya kuwa cayrinaya laftigooda haysta baasboor ajnabi oo dibadda ka yimid waan ogna marka waa laba galle waa laba qof duality baa la yiraahdaa duality baa psychology lagu yiraahdaa laba qof weeyal duality-gu waa jiro qof baa marna sheekh wadaada ah marna shaydaan oo dadka dila marka waa qof jiran oo psychologically aan caafimaad qabin weey waa duality waxaad ka fiirin kartaa nin muxuu ahaa psychological principles waxbay isu dhimeen dadka arintaas sameeyay waana dad yar dadka reer waqooyiga dadka reer Soomaaliland waa aqaanaan dad Soomaali ah oo dhiig Soomaaliyeed leh oo dadka ugu dhiig kulul Soomaalinimada difaaca ah weeyaan maantay in waxba isku beeray Abdi Malik Aldoon Awaale iyo tan iyo kuwa kale oo tiro badnaa iyo kuwii laga tarxilay Berbera waxa soo dhan baa isku beeray waxaan rajaynayaa inay si toos ah uga dhiidhiyaan arrintaas oo uga hor yimaadaan ugana hadlaan waxa weeye nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu salaam man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi ninkii wax xun arkow la dagaalan waa amar la yantiqu an al-hawa waxa nabigu sheegay ilaahay baa sheegay waxa ilaahay u soo dhiibay weey marka qofkii xuma arkow la dagaalan hadaadan la dagaalami karin arabka ka eedee oo meesha hadda aanu taagnahay hadaadan arabka ka eedeyn karin qalbiga kana Soomaa waxa kale oo jira xadiis oranaya akbarul jihad inda Allah kalimatul haqq inda sultan jair jihadka ugu weyn oo ilaahay xaqiisa ugu weyn ee la isku abaal mariyo aakhiri adduunba waxa weeye kalimad xaq oo aad nin sultan oo jair ah ama nin xukumo meel oo khayr daran aad hortiisa ka tirahay يعني شهيدك ودنتي إلهي درتيس إياه كانوا يسكمت هدوس ما كدر يسوينين أكبر الجهاد بقى إلهي بحديث كله مركا حق دين حق دقن حق أمداد حق شرف أنت بحق بقى دول يدهين واد هاي ستان مانتي إن هذا هنتا كدي ديدان لا يصوب بلابو لو يعده إلا لا سعانه إياه ذلك أنت سكله إيه سومالد أنت ذكله وحلوات كيسان كرمه مدكله dad ma guuro adeer dad baa ku nool dal wuxuu ku yahay dal wadadii uu joogaa dadkaana dad shaqaysta weey halkaanay joogaan qardhay joogaan boosaasay joogaan gaalkacyay joogaan Soomaa dhuusamareeb bay joogaan beledweyne joogaan jowhar bay joogaan xamar bay joogaan ilaa meesha dalka u dhameysay joogaan
waxaan shaqo ahayna laguma oga hadda hotelkan aan joogno garow ku yaala ayaga ka shaqeeya waana la ogyahay muruq maal weey dad muruqooda maal weey Soma cid kaliya Soomaali shaqaysata weey saan ognahay marka waxaan rajaynayaa Soomaali inay arinta ka falceliso si degdeg ah waliba waa mahadsanto maalgelinta bangiga Salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada Islaamka waxa uu bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo gali kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib ah ama bilaa ah